السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan saaxiibayaal meel walbood joogtaan waan idin salaamayaa marka labaad waxaan idinku mahad celinayaa inaynu gaadhnay 500 oo subscribers thank you haddaan ab Soomaali idinku dhahdana waad mahadsantihiin dhammaantiin meel walbood daafaha dunida ka joogtaan 500 ee qof waa qoyskayga waa wadnahayga waa xididadayda waa dhiigayga waxaan idin leeyahay nabad ha idin soo gaadho salaan baan idin soo gudbinayaa halkaa aan joogo ayaan idinka soo gudbinayaa qof walbana meeqaamkiisa ku salaamayaa waxaan idin leeyahay nolosha idin wacnaato waxaa idinka rabaa inaad intaa iyo in ka badanna aad channelka gaadhsiisaan mahad celinta iyo bogaadinta iyo salaanta kadib ku soo dhawaada qaybtii afraad ee qisadeennii jacayl ee taxanaha ahayd ee habeenadanba aynu soo wadnay qisada qaybtii hore waxay noogu joogtay iyadoo wiilkii iyo Aamina isku dul ooyeen oo markii wiilkii ooyay ay Aamina ku dartay oo ay weydiiyay maxaad la ooyaysaa Aamina walaal qaaliye yadna ugu jawaabtay waxa caaday ah haddii aan arko qof calacalaya ma ooynaya ana waan ku daraa qofkaas marka walaal iga daa calacalkeeda ku tiri oo isna markii Aamina inta ay ku tiri oo farxay oo ogaaday gabadha Aamina inay tahay gabadh naxariis badan oo dun jilicsan oo dabacsan oo qalbi wanaagsan saacadan eegay buud waxaan arkay xilli dambeeyo saacadu tahay oo saacadu si cagacagaanayso kowdii habeenimo inta aan la hadlayay Aamina mar kaliya kama dareemin buud inay dhibsanayso markii aan arkay in xilli dambe tahay ayaan Aamina ogaaday inay xishoonayso oo ay ka xishoonayso inay tiraado walaal waan seexanayaa maca salaam balse anigu waxa kaliya aan ku seexanayaa waa Aamina oo tiraada jacaylkii aad ii bandhigatay waan ka aqbalay intaasaan anigu ku farxi lahaa buud Aamina ayaan u sheegay in xilli dambe tahay buud waxaan ku yiri walaal waa xilli dambe maxaynu ku kala tagnaa caawa codsigiisa meega aqbali oo meega aqbash ilaa caawa dhan waxaan la ooyay in kula calaacalay waxa weeye gabadhaas in jacaylka culayskaygu ah inay la aqbasho wax igala qabato Aamina waxay igu tiri walaal arrinka waan ka soo fikirayaa caawana iska seexo walwalka iyo ooyintana iska daa walaal waa inoo habeen dambe haddii Ilaahay ka dhigo arrintaana waan ka soo fikirayaa sidaas aan ku kala tagnay inta markii Aamina igu tiri ayaan u raaciyay walaal waan ka qaatay arrinta iskana soo fikir laakiin wax fiican baan ka rajaynayaa in wax jeclaaday rajadii ayaan ka sugaya inta markii aan ku iri walina Aamina telefoonka aanay dhigin ayaan hees baan u qaaday bulay marka anagu waxba hees akhrin mayno oo hees soo gudbin mayno hees buu u qaaday calacala oo de ilaa halka maraysi markaan heestii u dhameystiray buu ayay ugu qosashay way gabadhani waa gabadh ahli diin oo heesaha iyo waxa ugu ma baxdo laakiin heesta nuxurkeedu waxay ka ogaatay inaan jecelahay oo aan si dhaba u jecelahay run ahaantii gabadhani ahli diin baa ahayd oo reer qoys diin leh ayay ka soo jeeday waxyaabahan Aamina ugu khushuucayn jacaylka ugu qaadayna waxaa ka mid ahaa buu Aamina waxa ahayd qof aan marnaba been sheegin waxbana kama xigin oo waxba dhibaato kuma lahayn inay Aamina igu tiraado ku jantay markii aan ku iri waan ku jecelahay yadna inay tiraado anna waan ka daranahay way oran karisi laakiin been shaqo kuma lahayn sida dadka maanta been isku sheegi karaan de Aamina waxay fahansaneed in beentu tahay shay xaaraana oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaaraantinimay sharafteeda iyo karaamadeedana wax u dhimay waxayna fahamsaneed in beentu iyada ku soo noqonayso waana sababta keenta in Aamina habeen kasta igu tiraado waan soo fikiraya in aan jacaylkan wax kala qabto iyo in kale waxyaabaha jacaylka igu beeray waxa kamid ahaa daacadnimada Aamina iyo muujista habeenkii waxaan seexday anigoo guul iyo guul darro u dhaxeeya oo laba dhinac kala jooga
dhan guul baan ka gaadho si fiican baan aamina isku barannay waxaan ogaaday xoogaa inay ila dareen tahay oo waa tahay ila ooyeysa dhanna guul darraan ka dareemayaayo waxaan u socdo laygama aqbaline han ka soo fikra laygu jawaabay marka labada dhinac ayaan u dhexeeyaa balse si fiican ayaan u seexday wax walwalan ma qabin habeenka habeen labaadkii waxaan sugayay natiijada laakiin anigu waxaan go'aan ku gaadhay oo go'aanka meel ii yaallaa wuxuu yahay in si kastooy aamina i diido haddii xataa si kasta aamina i diido inaanan ka hadhin waxaan go'aan ku qaatay inaan habeen kasta gambar ugu fadhiisto habeen walba inta nolosheeda ka hadhay hadday igu qaadanayso inaan fahamsiiyo oon ka dhaadhiciyo jacaylkaasi 100 sano hadday igu qaadanayso inaan u huro waqtiga intaa leeg baan go'aan ku gaadhay buuri balag jacaylku noocaas inuu noqdo fiican haddii kale wax kale isku sheegayaa been wey habeenkii ila ballantay markii la gaadhay buuri saacad ka hor ayaan telefoonkii soo qaatoon dul fadhiistay sii dirgaro sida arday yaroo dhaganugul oo macalinkiisa u dhaganuguloo xiisada xilligaha ka habsaamay marka la dhahdo hore u soo dhaqsanayo kale ayaan wuxuu yidhi telefoonkii ku sii diyaar garoobay yaa qof jacayl hayaa waa qof waalma dhaamuun macnihiigu wey marka waxaan ku sii diyaar garoobay buu leeyahay telefoonkii saacad ka hor baan sii diyaar garoobay si nin shaqadee laleeyahay maanta waxaad la kulmaysaa agaasimaha guud intuu shirkad u shaqo tegay agaasimihii baa maanta kula ballansanay xafiiskiisa 7 u kaala leeyay oo kale oo shaqo qaaliyade loo ballanqaaday oo kale waliba guul baan filayaa oo aad baan ugu rajoonahay inay odhanayso caawa waan kula wadaya jacaylka waan ka aqbalay xilligii markii la gaadhay ayaan aamino wacay telefoonkii markuu cabaar dhacay buuri ayay aamina iga qabatay si fiican baan codkayga u barto codkaygu igama khaldamayo weji furan bay igu soo dhaweysay si qurux badanna way salaantay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabadh diin leh waa ahlu diina sideedii bay salaantay ana waan ka qaaday wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu yaa xabiibatii yaa aamina saasaan u salaamay waxay ii gudbisay igu tiri iska war fiican tahay xaafadiina ka war ana waxaan ugu jawaabay walaal aad baa loo fiican yahay xaafadu waa fiican tahay barwaaqo bash idinku iska warrama xaafadii carruurtiina ka war markaan intaa weydiiyey buuri ayaa iyadoo faraxsan bay igu jawaabtay walaal waa la wada fiican yahay carruurtiina way wanaagsan tahay oo qolkan igu xiga ayay ku akhrisanayaan oy wax ku baranayaan oo qolkan igu xiga ayay carruurtii wax ku akhrisanayaan intaa markii aamina igu tiri ayaan ku ori anoo la kaftamaya weliba oo aamina adigu miyaanan habeenkii wax akhrisanba intay qosashay ayay igu jawaabtay walaal waqtigayga inta badan waxaan ku qaataa wax akhris markaan salaada maqrib ka baxo ayaan hooyadii caawiyaa oo aan shaqada guriga wax kala qabtaa markaan shaqada maqribka meel iska dhigo in hooyadii caawinteeda iyo shaqada guriga meel iska dhigo qolkayga ayaan ku soo laabtaa oo aan wax ku akhristaa ilaa ay hurdayga imanayso ka seexanayo iminkana ka sii daranoo imtixaan ayaan galayaa markii aad telefoonka soo garaacday ayaan adiga dartaa u soo kacay oo aan is idhi bal inankii la hadal markay intaa igu tidhi intaa igu jawaabtay ayaan ana ku idhi anigoo aad ugu faraxsan oo dareemaya inay aamina ii soo dhawaatay aad ayaan ugu mahad celiyey kuna idhi walaal waad ku mahadsan tahay sida fiican eed ii tixgelisay runtii intaa wixii ka dambeeyey waxaan filayay in aamina go'aankaygii soo gaadhay ii soona gudbinayso anigoo ku rajo weyn in ay tayada igu raacayso balse way igala xishootay inay wax go'aan ah ii dhiibto markii aan arkay in aamina iga xishoonayso waqti dambana ay tahay saacadduna saq dhexe kusii siqayso ayaan anigu ishayn kari waayey waxaanan aamina ku idhi walaal quruxey aamina go'aankii aan kaa sugayey waxaan rajaynayaa inaad ii soo gudbiso waxna ila qabanayso aabe go'aankii intaa markaan aamina ku idhi ayay igu tiri walaal maxaad igu falaysaa
habla igu qurux badan ayaad helaysay. Markay Aamina intaa igu tiri ayaan ana ku idhi walaal adiga cid aan ahayn indhahayguma arkayaan, haddii aan ku waayana geeri baan ka xigay. Waxaan ogaa inay Aamina tahay inan naxariis badan, sidoo kalena Aamina waxa ahayd inan qurux badan oo reer dhami ku indha kuushaan. Gabadh aad loo kolkooliyey oo qoys ladan ka dhalatay bay ahayd. Gabadhu Aamina la idhaahday da ahaan gabadh yar bay ahayd, laakiin maadaama ay nolol fiican ku kortay oo reer ladan ay dhaleen, jidhka iyo maskaxdaba aad bay uga kortay oo gabadh weyn ayaa la mooday marka. Waxaa laga ilaaliyey gabadhaasi duruuf iyo darxumo. Waxaa laga ilaaliyey inay dibad wareegto. Waxaa laga ilaaliyey inay saaqido oo ay wax baran weydo. Gabadh aad looga taxadiray oo nolosheeda maadi iyo teeda diiniba laga taxadiray. Maadiga waxaan uga jeedaa nolosheeda waxay cunayso iyo waxay ku nooshahay iyo nolosheeda la ilaaliyey oo la dhaqaaleeyey. Maskaxdeedana la dhaqaaleeyey oo qofka haddii maskaxda la dhaqaaleeyo jidhka laga dhaqaaleeyo oo maskaxdiisa wax la bari waayo, qofkaas sida dameeraha iyo xooluhu noqonaya. Marka gabadha Aamina waxay ahayd gabadh nolol ahaan la koriyey oo nolol fiican barwaaqo ku nool oo ay ka muuqato. Maskaxiina wax la baray oo gabadh diin la baray oo macahad diiniya dhigatay. Aamina markay madrasada tagayso, quruxda Ilaahay siiyey ragga hormara ama soo agmaray kama jeestaan quruxdeeda, way la khushuucaan, laakiin iyadu cidna salaanta kama qaato. Waa gabadh dhowrsoon oo is ilaalisa wey. Markaan haddaba Aamina u sheegtay inaan la'aanteed noolaan karin buuri oo xaalkaygu khatar ku sugan yahay, balse aanay weli ii jawaabin oo hadalladii murugada lahaa aanay weli iiga jawaabin, ayaan u sii raaciyey maanso yar oo kooban. Marka waan ka cudur daaranayaa inaan maansadaasi idin akhriyo amba idin soo gudbiyo. Maansadaasi waxay sheegaysaa macnaha guud ay sheegaysaa waxa weeye in ay tahay uun ninkaasi inuu gabadha jecel yahay. Naf jacayl sawaabo sanka ku dalooshaa oo ku siday hoggaanbaad u sida maqaarkee, ha u gaabin seetada sogsogtii cadaadiyo ha ku seedhin laamaha. Markii aan Aamina maansada gaaban ee kooban u tiriyey ayay igu tiri horta walaal barasho iguma kaa hadhana, inaad maalin ku baran weydina sanad kuma baratid. Markaa walaal barasho iguma kaa hadhano, inaan been kuu sheegana amba aan ku lugooyana ma doonayo. Waxaan si kuu sheegayaa in aanu jirin go'aan cad oo aan weli soo gaadhin. Weliba aad ayaan ugu rajo weynahay inaan jacaylkan ku haya ee beerka iyo boga kaa tumay wax kaala qabto. Waxaanse kuu ballan qaadayaa inaan habeen dambe haddii Ilaahay ka dhigo inaan go'aan cad ku keenayo oon warkayga oo cad ku keenayo. Wixii horena iska ilow, wax fiican ayaan noo rajaynayaa haddii Ilaahay idhaahdo. Haddii Ilaahay isku qorayna ma jirto cidina kala qaadaysaa walaal. Markay Aamina hadalka igu tiri, hadalka rajada iyo waanada isku jira markay igu tiri ayaan ana ku idhi walaal waan qaatay hadalkaagii, laakiin walaal habeen dambe ha igu dhaafin oo waranka lagu gilgilo iyo waranka lagaa dhex saaro. Ka lagaa dhex saaraa iyo xanuun fudud, ka lagu nujinayay dee ma fiicno. Waranka igu nujinne habeen dambe ha igu dhaafin. Waanan ku sugayaa walaal, wax fiicanna waan kaa sugayaa. Intaa markaan gabadhii ku idhi ayay igu tiri walaal insha Allah wax fiican ayaan noo rajaynayaa, si fiicanna u seexo, walwalka iyo walbahaarkan iska jooji, sida iyo habeen wacan ayaan u raaciyey. Habeen dambe xalqadda 5aad baan insha Allahu tacaala u soo diyaar garoobaynaa iyo bahalka isla maraan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.